waxa weeye arinta uu ka hadlay ninkaas shaqaalaha ah ninkaan shaqaaluhu wasaaraddu ka tirsanaa wuxuu ku qornaan jiray degmada Qandala dadkii maamulaha aan uga dhignay oo halka ka shaqeyn jiray buu ahaa kadib Qandala waxaa qabsaday niman Daacish la yiraahdo Daacish haday qabsadeen buu yimi wuxuu yiri dukumeentiga aan hayay iyo hantidii aan hayay waxaan uga soo cararay meeshii Qandala ahayd aniga naftayda la soo baxsaday laash baan u soo dabaashay anoo qoyan baan buruc imi saasaan ku imi arintaas daba dukumeentiga lambaradooda iyo waxooda baa la qoray wasiirka Allah u naxariistay Binde markaa baa joogay wasaaradda wasiirka ahaa arinta waa la faafiyay kadibna haduu muddo joogay oo arintaas wasaaradda iyo hay'adaha la shaqeynayaba loo gudbiyay annaguna Ilaahay dartiisa aan u qaadanay waxa dhacday Xumbays baa misana waxa looga dhigay degmada Xumbays meel la dhaho Holcaanood waa maamulo looga dhigay meeshaas uu shaqo ka hayay waxa la ii sheegay ninka in la qabtay in lagu qabtay dukumeenti false ah oo forgery mudana uu ku xirnaa jeelka weyn la geeyay kadibna dekada la keenay forgerygaas annagu indhaha aan leenahay ma saarin ma arag isagoo watana oo ku shaqeynayaan waagi hore ma arag markii dambe la qabtayna annagu forgeryga lama soo bandhigano indha aan leenahay ma saarin laakiin guddigii baarista oo madaxweynuhu soo magacaabay baa waxa weeye forgerygaas sheegay waxay noqotay kolba arrin mas'uuliyiin haday sheegan haday waxba ka jira hay'adaha shaqaaluhu waa badnaayeen 15 shaqaalaha baan maleeyaa waxay ku qornaayeen xeebaha oo ka shaqeynayay kuwa kale waa ciidamo soo qaban laakiin isaga waxa lagu soo qabtay waxay ahayd kolba dukumeenti forgery sida la sheegay warkaas saas maqaal ahaan noogu soo gaaray kadibna guddigii haday wax baarayeen waxa noogu xigtay digreetada madaxweynaha oo waxa weeye xilka laga qaaday dad badan arinta intaan kala socday intaas suuqmaasuqa ah annagu isku tirin mayno cid nagu cadeysay oo ama aan hor keentay inaan musuqmaasuqan hayno ma jirto musuqmaasuq aan galayna ma jirto waxa weeye hay'adda anu hadeer wasaaradda kalluumaysiga muddo dheer baan u shaqeynay maalin beheer bay joogtay waxa jiray heerar ay dawladdu isla xisaabtankeeda iyo dukumeentiga xafididiisa iyo security ilaalintiisa iyo ay inta ka liidatay hadaan musuqmaasuq sameeyno waagaas baanu sameyn lahayn waligayo musuqmaasuq kuma aanan fakrin mana aanan gelin haatan diyaar uma nihin oo hatta waxa weeye maanta aan xil ka tagnay inaanu dalka kaga shaqeyno musuqmaasuq diyaar uma nihin arintaas arin annaga waxa weeye aan lu kuleenahay maaha ninkaan arinta uu ka hadlayo oo forgerygan waxaan maqli jiray nin qoyan hadda biyo iskama dhawro qofku mar hadii isagii uu waxa weeye xaaladiisu xun tahay oo isagii tuug yahay wuxuu jecel yahay dadka inuu tuug sheego oo waxa weeye muxuu ahaa dhaho cid baa waxa ay ugu jirtay inuu kaliya qofku meel istaago hadiyo jeer dadku way ka cararaaneen waxaas anigu u arkaa inay nasiib darro tahay dawladdu nin forgery lagu qabtay oo forgery cad la sheegayo oo ilaa mas'uuliyiinta dawladda ugu sareysay la geeyay inuu maanta in dawlad forgery la sii daayo ninkii oo la damiin baan ku soo baxay anigu ma garan karo meel kaga jirta sharciga sababtu waxay tahay annagu ciidan uma adeegsan qofka shaqaalaha wixii sharciga ka baxsan xor buu ka yahay waxa la dhaho forgery iyo dukumeenti la sameeyay wax khatar ah markii maamulka dawliga la fiirsho intaanu annagu soo qabanay forgerygan qaab oo ku shaqeeyo oo hawsha qabo waa khasab ma jirto idinkana waxa way waa dareemi ka dhaanin cid lagu khasbi karo wasaaraddu intaas oo madax leedahay wasiir baa ugu sareeyay dawladda hadii loo kacana intaas oo hay'ado dawlad oo musuqmaasuqa ka shaqeeya ama la dagaalama waanta dhowrkii leh oo muxuu ahaa hay'adda musuqmaasuqa iyo la dagaal maamul wanaaga leh iyo oo madaxweyne ilaa iyo madaxtooye leh bay leedahay qofku xuquuq buu intaas oo dhan u lahaana inuu geeyo waxaan baa la igu khasbay hadduu isagu daacad yahay daahir yahay laakiin waxa ku muuqanaysa intuu adduun qarabay goortu isagii waxa weeye baashi kor iyo hoos bagaadhay inuu maanta kula meereysanayo dadka inuu ku canjarafeeyo waxaan jirin
arrinta lacagta dadka muxuu ahaa shaqaalaha markay shaqeeyaan waa run annaga maamulayaasha waxay lahaan jireen 5%. ninkan waxaa jirtay marka lacag wasaaraddu lahayd oo dakhli hoose ah oo 20,000 marka ahayd markii laga reebo dukumentiga kale oo dawladdu lahayd oo uu yiri daacish baan iga dhacday lacagta wasaaraddu waa ka wada hadashay waa la isugu yimid waxa la ninkan lacagta seeba u soo qaadi weeday hatta lacagta meel baa la gashan karaa waxbaa la bahalkeen karaa waxyaalihii aadka looga hadlay oo wasaaraddu isugu timid bay ka mid ahayd dabadeedna lacagta uu lahaa 12,000 ma ahayn axumay lacagta 7,000 meelahaas bay ahayd waxa la sameeyay marka ciidan baa howlgal iyo hawl loo diray maadaama marka isaga uu awl dakhli 20,000 oo wasaaraddu leedahay ku maqnaa marka dokumentiga laga reebo lacagtii waxa howlgalkii iyo hawshaas lagu aaday isagana waa loo sheegay maadaama uu markaa bahalkii ahaa waa loo sheegay waxa la war lacagtaas intaas ay halkaas aan ku baxday badda muxuu in lagu ilaaliyo oo lagu dagaalamo illegal fishing ka baa lagu aadayaa wuxuu raali ka yahay been ahayd wax laga xoogay ma ahayn marka 20,000 ma lacag la waayay markuu gacan soo meesha joogo 20,000 waa lacagii uu wasaaradda uu hayay oo uu ku yiri waa ka soo cararay oo waxaan uga soo cararay degmada iyada maxaad ka sheegaysaa annagu hadda cidda la soo sameysay oo uu kala dhilgareeyay oo kalba u soo sameysay isaga garanaya isagaana soo sheegi doona waxaan ogsoonahay laakiin aan taa kale uu sheegayo oo uu leeyahay anigu agaasima aan u keenay ama wasiir baan u keenay waxa weeye anigu mid aan ogahay maaha mid anigu wasiir isugu nimana ma waxaan aaminsanahay inay tahay been abuur uu hadda la wareegayo waxaan ogsoonahay aad isaga difaacdaan annagu horta xilka qaadista horaan u sheegnay xilku meerto weeye hadba cid baa loo soo magacaaba kama xumin oo waxa weeye shalay baan anagu dikreetaan ku nimid madaxweynuhu xaq buu leeyahay dikreetada ciduu rabo inuu ku magacaabo oo markaa u garto isaga inay shaqada iyo markaa soo u arka aragtidiisa ugu muuqato inay ku habboon tahay eedaynta kale oo ku qornayd waa ka hadalnay hore baan uga hadalnay waliba SBC waxaan u maleeyaa waa naga wareystay eedaynta annaga isku tirin mayno meel kasta oo sharci ahaan ah inta diyaar baan ugu nahay maadaama aanan isku tirinayn lugna aanan ku lahayn maxkamada hadda ugu dambeynta